بسم الله. الحمد لله رافع السماء جعل لكل داء دواء ولكل جرح شفاء صاحب التدبير في الأرض والسماء سبحانه خلق الخلق وكان عرشه على الماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. halkan waxaa ka hadlaya jaamac cabdi ismaaciil, jaamac cabdi dheeg ama jaamac kuutiye sidaad taqaaniin. alxamdu lilaah calaa nicamihi aldaahira waalbaatina. ilaahay baa waxaan ugu mahadnaqaynaa nimcooyinkiisa kuwa uu noo qariyey ee noo qarsoon iyo kuwa muuqda dusheenna saaran ama aynu indheheennu arkayaan ee uu inagu galladay. waxaan halkan ka soo gudbinayaa warbixin yaroo kooban oo ku socota dadka axmed garaad u dhashay ee qaaradaha adduunka kala degsiimaystay ee ku kala durugsan afarta beenijaho ama afarta garyaho. aad iyo aad baan idin salaamayaa, mid aan waalid u ahay iyo mid waalid ii ah, mid aanu ilmaadeernahay oo aan xagga garbaha ka simannahay, mid aanu walaalannahay iyo mid aan waalid u ahay. intaas unbay u qaybsamaan baan filayaa. waxaan aada u salaamayaa hablaha axmed garaad guud ahaan oo macno weyn iigu fadhiya. dhalinyarada axmed garaad, odayada iyo guud ahaan beeshaba. warbixin yaroo kooban baan halkan idinku soo gudbinayaa, taasoo taaban doonta nolosheenna, saameynna ku yeelata iyo taladaasina iyaduna waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa haddaynu ku hagaagno aakhiradeenna iyo adduunkeennaba. waxaan idinka maqnaa dhexdiinna muddo 18 sano ah. 2004 bishii 3 19 baan la xidhay. waxa aan soo baxay August 25 2021. ilaahay subxaanahu watacaalaa wixii uu qadaro meella loo dhaafi maayo, lagamana gudbi karo. qadarta ilaahayna cid la feertami karta oo ka hortegi karta, muqaawameyn karta ma jirto. ilaahay baa wuxuu qadaray muddada intaa leeg inaan halkaa ku soo qaato. ilaah ayaa mahad leh, nagu ilaaliyey intii aanu joognay meesha, nabadqabna nagaga soo saaray. intaa markaan halkaa ka gudbo, waxaan idinka mahad celinayaa sidii baholyowga iyo hilowga lahayd ee hawsheedaasi idiin dhibaysay, ee aada u danqanayseen guud ahaanba. ilaahayna waxaan idinka baryaa inuu idinkaga ajar siiyo. muddada intaa leeg meesha aan ku jirnay, dhegtayadu marba waxbay maqlaysay. jiidh lahayaa jiriidka kama qoslay soomaalidu tiraahdaado. dadkaagu markuu dhiban yahay ama waxyeelo ay ka dhex socoto, damiir qof kalihii wuu danqanayaa. ceeb badan iyo dhib badan ayaa dadka ka dhex dhacay. runtii marka la eego ka reer ahaan
dad gob ah oo calool wacan oo golaha marka isugu timaadaan raganimo iyo dadnimo ka muuqatay u badan yihiin. waa dad runtii samxi iyo gobonnimo iyo shihaamo leh, laakiinse taladu sidii la doonayay ma tahay. dhexdeennu sidaynu isku nahay markii aan ka tegey iigu dambeysay jawigii aan kaga tegay iyo jawiga hadda maxaa u dhexeeya? wax weyn baa u dhexeeya runtii. markii aan imi waxaan ugu imi dadka bugto aan saa usii fogeyn oo la boogadhayi karo, dhaqsina u bogsoon karta runtii. dad aan maamul iyo dowladee hoos tegin oo keligood wada nool oo shacab ah oo hubeysan, dadka ugu dhibka yar ama ugu dhibaatada yar bay noqonayaan, uguna gobonnimada badan runtii. hadalku haddii aan dabcno inaan wadno aad buu u dheeraanaya. waxaan muhiimadduna tahay in la soona koobo nuqdatu dacfigeenna ama meelaha godololooyinkeennana aan awdno oo taabanno. 18 sano kadib Buuhoodle ayaan imi. dee waad ka warhayseen, dadku ay soo dhaweeyeen runtii, alxamdulilah, ilaaha barakeeyo, tolki jira allaha ka dhigo, gacmo furan iyo qalbi aad moodo inay maaragtay ka wada midaysnaayeen xanuunka iyo dhibka xadhigaygu reebayna way ka muuqatay. waan uga mahad celinayaa dal iyo dibadba. niman yahu markii aan iyo walaalayaal iyo adeerayaalow markii aan imi meesha, waxaan waraystay deegaanka iyo wararkiisii, warre iguma seeganayn hore. kabacdi waxaa ii muuqatay in aan shiriyo Axmed Garaad oo la boogadhayo wixii uu kala tirsanayo dhexdiisa la qaabeeyo. waxaynu la degannahay magaalada Buuhoodle, inala degan kara Axmed Garaad ahaan, dad aynu isla soo dhaqannay, dhaleeyannahay, wada dhalannay, isku dhiignahay, isku dhaqannahay, isku diinnahay, oo dhulbahanta ah. maalin walba magaaladaas dhacdooyin fara badan oo Axmed Garaad dhexdiisa ka dhacay baa jira. rasaas aynu isku ridaynaa maalin walba guryahooda ugu tallowda oo ugu gasha dukaamadooda. waxaasi wax la aqbali kara ma tahay. markay noqotay maya, waxaan ku baaqay markaa shir 108 xubnood unbaan invitationka aanu siinay. waxaa lagu kulmay magaalada meesha la yidhaha Buuhoodle, hodheel ku yaalo Rice Hotel hoolkiisa ayaanu lagu kulmay. dhaliilihii jiray iyo waxa dadkani yahay iyo dadkani inuu maaragtay qof jasad labada gacmood ku kala yaallo oo kale ay wada yihiin, oo aan xubinta kale ka maarmi karin, inay yihiin markii dee la is xasuusiyey. waxaa laysu yahayna dee cidna loo sheegi maayo. ayaa waxaa noo muuqatay sidee loo boogadhagi karaa markii halkaa laga hadlay. cuqaasha iyo ningarboodka iyo dadka aan maaragtay caqliga iyo dadnimada lagu tuhmaya ayaan shirkaa ku casuunay. dadka dhalinyarada ah ee mutacalimiinta abaa qeyb ka ahaa. odayada iyo ningarboodka iyo cuqaasha iyo culimaduna way ku jireen. waxaa laysla qaatay in aynu asturno, kana dhiidhino, waxna ka qabanno waxyeelada dhexdeenna taagan ee soo noqnoqotay. maxaa sababaya dhibaatooyinka inugu soo noqnoqda? sidee loo soo afjari karaa dhibaatooyinkaas soo noqnoqday? wixii markii aanu isla eegnay waxay noqdeen aanooyin iyo qoomihii dagaalkii
magaalada ka dhex dhici jiray, Axmed Garaad ka dhexdiisa ka dhex dhici jiray, oo 30 qof ahaa. 30 qof dhaawacyo kala duwan bay qabeen, qaar baa naafoobay. dhacdadii ugu dambeysay xanuunka badnayd ee dadkii ugu qaalisanaa nagaga baxeenna iyada ayaa sababtay oo soo celisay. waxaan markaa go-aansanay in aan tallaabo u qaadno, khudwa bikhudwa, yacni tallaabaday ku xigto, in aan bogsiino, aasaaska kasoo dhisno, yani binya taxtiya wax la yidhahda aan samayno, dhismaha aasaas fiican usoo dhigno. aasaaskaa markaan usoo dhignana aan dhisno gurigeenna, kabacdina la dhaahiyo oo laga bogsiiyo dhibaatooyinka aynu ku hayno dadka reer Buuhoodle ee dhulbahante ee aan Axmed Garaad ahayna inaan la nool, dhibaatooyinka amni darro iyo khalkhal ee aynu ku hayno. kabacdina Buuhoodle sidaa lagu mideeyo, danihiisa markaa looga gudbo oo la sameeyo qaab aynu una kala nabadgalno, una kala badbaadno, oo bal calal aqal tallaabada ku xigta laga dhigo in la sameeyo, horta ugu horeyn in raggii dhaawaca ahaa oo xaqoodii 3 meeloodoo meel markii hore xeer laga daayay oo la yidhi maaragtay intaa faraha ka qaada, 2 meeloodoo meel hal la siiyo oo loo qarrido, loo xukumay, in dad diyaar u ah oo hadda muuqanayana aysan jirin, ayaan tuurta u ritay. guddinaan samaynay. guddidaasi waxa weeyaan facaalka ah shaqaynaysa waa guddidii Axmed Garaad ee hore ee ku kala dhex jirtay oo Cays Aadan iyo Xirsi Cali Gari, dhalinyaro aad u maguug ah, caqli iyo dadnimo iyo diinba ay hadhaysay runtii, oo tayaysan, oo aan lahayn nin qabada. nimankaas ayaanu dooranay in ay noqdaan guddida hawshan Axmed Garaad dhexdiisa tasliixin karaysa. hawshaas markaa waxaanu samaynay in aanu tallaabada ugu horeysa ka dhigno ee la qaadayo in la boogadhayo dhaawaca, xaqiisii la raadiyo. qabiil mahwi ah oo ballaadhan ayaynu nahay. qur wax dhibaa qabiil ma dhibaan bay Soomaalidu tiraahdaa. hal maalin baynu xaqooda ku siin karnaa. 490 halaad ayay leeyihiin. 490 halaad buu xaqoodaasi noqonayaa. waxaanu ugu talagalnay in aanu lacagtaas ka ururino Axmed Garaad, inan oday, mid miyi jooga, mid magaalo jooga iyo mid qurbo joogaba. taa waa isla qaadanay tallaabada ugu horeysa, kabacdina nimanka xaqooda siino. tallaabada labaad aanu ku dhex wadno oo aanu reer kasta oo Axmed Garaada hubka uu magaalada ku dhex wato si gaara loogu ogaado gacmo ammaana lagu ururiyo. khayr allaha siiyo Faarax Aadan Hagar ayaa hawshaa fuliyey. gobonnimo iyo dadnimona Allah ha u kordhiyo. waa ehelkeennii oo caqli saliima keenay, gartayna inay hubkooda iyagana ka dhexdooda ay ku kala badbaadaan, walaalahoodii ehelkoodana ay ka badbaadiyaan. labadaa tallaabo in la kala horeysiiyo, marka hore dadkan dhaawacyada iyo dhibaatadu ka gaadhay dagaalkaas loo yeedho, xaqoodiina la siiyo. dhaawacaasi waxaanu ballaminay, maanta waa Jimce,
salaadii subax baan tukaday ee jimcaha waa 1dii bishii tobnaad 2001. isniinta soo socota ayaanu la kulmaynaa. waxaanu doonaynaa in aanu kala qoranno. aadan axmed iyo cali axmed buu dagaalkaasi dhex maray, dad kalena dhexdooda waxbaa ku gaadhay. yani ninka aadan axmed inuusan caligeri waxba u doonan, ninka caligerina uusan aadan axmed waxba u doonan. xaqaas in uu annaga noo soo raadsado guddi ahaan, annaguna aanu ka howlgalno. 18 sano ayaan anigu xidhnaa. bifadli illaahi wa cawnihi, ilaahay fadligiisa iyo kaalmadiisa kadib markii aan meesha ka soo baxnay 18 sano reer aan leeyahay uma shaqaysan, waad iga ogeedeen meeshaan joogay. haddana dan aan leeyahay ilaah wuxuu igu ogyahay in aanan xaalayn, xaggeedana aanan eegin. waxaan go-aansaday hawshaa anigoo dhinac dhiga mooyaane in aanan dan reerkayga iyo caruurtayda midna aanan usoo jeesan. waayo haddii aan gogoshaydii si niyad sami aanan u jiifsan karayn, qoyskaygii bugta kala dhex taallo, dhibaato uu dareemayo aan wax ka qaban karo, inaan tayda ka hormariyo tooda. in aada layla dareemaan rabaa taa in aada layla dareemaan rabaa. waana rajaynayaa inaad ila dareentaan. gobonnimo iyo dadnimaan idinka rajaynayaa. qof kasta oo muddo kara oo axmed garaada, warkayagu idin soo gaadhay. odayadii maandhaydkana siiyeyna hawada ayaanu soo gelinay ee axmed garaad cuqaashiisii. qabiil meel kuma wada dhammaado. intii ugu mudnayd ee aanu isla helnay hawsha aada bay usoo dhoweeyeen. insha allah wuuna idinsoo wada gaadhayaa ama wuu idinsoo gaadhay. waxaanu samaynay guddi khasnajiyadii leh, xoghayntii leh, guddoomiyihii leh, guddoomiye ku-xigeenkii leh. waxaanu ugu talagalnay in magaalo kasta oo tuulo ah oo axmed garaad dego oo u ceel dego in aanu tagno, aanu xeryaha ku galno oo xeryaha ku martino oo sekadooda iyo wixii ay nagu taakuleynayaanba aanu nidhaahno nagu taakuleeya. qolayaha dabadda jira ee maaragtay diaasbarada baaqayagu inuu gaadho. qof kastoo axmed garaada oo damiir leh, dadnimo ku jirto, ka danqanaya ehelnimada iyo dhiigga iyo laxamka iyo hilibka isugu keen yaalla oo danqayo, islaamnimada iyo qaraabanimadu danqayso, inuu hawshaa mushaarakayo nagala qayb qaato ayaanu doonaynaa. waxaad heli doontaan oo la socda odayada baaqooda akoonnadii lacagta lagu soo shubayay. lacagtaasi inay nagaga dhammaato ayaanu rabnaa ugu badnaan bil iyo badh. wixii rag u kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan baa loogu hesi jiray xoolaha howsooladadooda ka mid ahaa. waxaan aada ula hadlayaa weliba oo aan si muusanow leh maratuur ah aan ula hadlayaa hablaha axmed garaad ee gobonnimada iyo dadnimada badan aan ku ognahay, kana rajeynayno in ay maaragtay gacantooda soo gaadho akoonkaas. kasoo qayb qaata ilmaadareyaal, walaalayaalow. hawshaas waxaan doonaynaa axmed garaad inuu noqdo axmed garaadkii hore oo ahaan jiray ilaahay idankii. in ay noqdaan ul iyo diirkeed, wax kala dhex yaalla, madmadowyo yaryar oo lagu kala bogsooday oo aanu gacmaha isu saarnay oo aanu filayno in aysan dib dambe usoo noqon. haddana aanu boogihii ay waxaasi reebeen ay tani tahay oo aan doonayno in si deg dega looga jawaabana laguna boogadhayo ayaanu wadnaa. dadku aada bay raqbo iyo kalgacal u muujiyeen una soo dhoweeyeen hawshaas. ragga meel ay joogaanba laha jecla waxba ina tari mayso. waxa aynu doonaynaa waxa weeye in ay dadkeennu ay kala badbaadaan, ceebaheenna inaynu asturno,
dadka inagu weersanaya inala yaaban inaynu fiirino eele war waxani wax caqliga gala oo nin keliya alaysa minkum rajulun rashiid buu nebi yidhi. war nin caqli laba miyuusan dadkan ka dhalanayn? yaa laynagu odhanin waxaynaan geyin yaynaan iyo gunnimo gacmaheenna ku doonanin. hawshaa ha laga soo qayb qaato. dan aan leeyahay dee meesha waad garanaysaa, xanuuno iyobaa had iyo goor qofku markuu muddo dheer uu de halkaasoo kale ku jiro dee wuxuu dareemi karaa xanuuno iyobaa iska jiri kara iyo cabashooyin. runtii aniga oo wax badan dareemaya haddana waxaan is idhi tuwatu ku ilow. war naftaada tadxiyeeyo, naf huris sameeyo, dadkaaga horta dhaawiciisa iyo kaagaa fudude kooda horta hala dhayo. hawshaasaan u kacnay. waxaanu diyaar u nahay in aanu wakhtiga 15 maalmood ee soo socda dardar xoog la gelino si aan inaba caadi ahayna u shaqayno tiwaal leyl wannahaar, habeen iyo maalin isugu bixinno hawshaas sidaan usoo afjari lahayn, kabacdina u qaadi lahayn tallaabo kale oo ummadda lagu kala badbaadiyo, sharafteedana lagu ilaaliyo. aanad ku farxi doontaan insha allah, oo ah bal in aynu hubkan la wato ee dadka makasta ah ee aan caqligoodu maaragtay hagayn ay gacanta ku sitaan, inaynu gacmo fekeraya, caqli habboon, dadnimo leh, gobonnimo leh ku ururino. hubkan dee waa hantideennii, waa sharafteenni. in la helo gacmo ammaana oo haya sida aan jifada inaga midka ah ee sharafta iyo karaamada leh ay u qaabeeyeen noloshooda, aynu inaguna u qaabayno. ka fekerno war sideebaynu hantideennan iyo maalka ilaahay ina siiyey ugu horumarin karaa deegaanka aynu joogno. sideebaynu waxbarashadeenna imise baynu dirsan karnaa sanadkii inagoo jeebabka mushtarig ka dhigayna, yacni jeebabkeenna iyo hantideenna inagoo midaynayna imisa dhakhtar baynu dirsan karnaa oo aynu ka bixin karnaa akoonka inoo dhexeeya ee aynu leenahay gacanteenna. sidee baynu uga nabadgelin karnaa maalka aynu maaragtay aynu haysanno, aynu ugu hagi karnaa ummaddeenna oo aynu waxbarashadii, caafimaadkii, keenna buka, keenna aan iska bixin karahayn daawada ee u baahan dhakhtar, aynu isu gudub taagi karnaa. in aynu feker saliima la nimaadno waa wax aynu inaga laynaga rabo maskaxdeena inay ka soo maaxato. cid kale inay inoo soo waarido oo wax ka qabatana looma fadhiye, inagu inaynu maskaxdana ka shaqaysiino, horumarkeenna iyo fikirkeenna iyo caqligeenna iyo tallaabadeenna horey u qaadna inagaa laynaga rabaa. ceebaheenna inaynu asturno, ku asturno maalkeenna, niyad saalax iyo qalbi wanaagsanna aynu la nimaadno. imaam shaafici raximahullah ayaa wuxuu yidhi wain kahurat cuyuubuka fi lbaraaya wasaraka an yakuuna lahaa qitaa'u tasatar bisikaa'i fakulu caybin yuqatiihi kama qiila asakhaa'u. haddii ceebahaagu ay dadka dhexdiisa aada ugu bataan oo ay ku farax gelinayso in aad u hesho ceebaha waxaad ku deddo oo aad ku asturto, waxaad ku asturtaa deeqsinimada. jeebkaaga isticmaalo deeqdaada ku astur ceebahaaga. maxaa yeelay ceeb kasta waxaa daboolo oo deda waxa la yidhaahdo deeqsinimada. waa sida ay yidhaahdeen dadka deeqsiyiinta ahay buuliya. marka inagoo ceebaheenna
muuqanaya aynu deeqsinimo jeebkeenna oo aynu hurno, dadkeenna oo aynu kala bogsiino, sadaqa jaariyay kuu noqonaysaa, ummad waxaad ku kala badbaadisay bay kuu noqonaysaa, walaalkaada oo dhaawac ah oo naafo ah oo caydha oo aad wax tartay bay kuu noqonaysaa aan shaqaysan karahayn oo aad ku badbaadisay, ubadkaagii bay dib ugu noqonaysaa. qof kasta oo Axmed Garaada hadalkan wuu gaari doonaa ilaahay idankii, mawaaqicda iyo boosaska laysugu yimaado iyo golayaashana wuu gaari doonaa. hawshaas halaisku kay garab taago, guddidaa halaisku gudub taago. guddidaa waxaa guddoomiyahoodu waa Salebaan Dheere. ninka la yidhaahdo waxaana khasnajiyiinta lacagta qabanayaana waa 3 nin ee laydiin soo gudbin doono, Yuusuf Maxamed Siraad iyo Sheekh Ismaaciil Ducale Ileeye, iyo ninka la yidhaahdo Yaasiin. waxaa lacagtaasi ay geli doontaa akoon aamin ah, si transparency ah ama shafaafo leh ayaad u ogaan doontaan meelahay ku baxday. waxaanu soo gudbin doonaa wax kasta oo na soo gaadhay $1 haddii ay tahay cidda soo dirtay iyo akoonka inta ay ku biirisay ee ay marayso. intaba waad ogaan doontaan si shafaafad leh ama transparency baa loo ogaan doonaa. warbixin baanu idinka siin doonaa isbuuci ah. dadkii waanu u yeedhaynaa Isniinta. waxaanu nidaamkooda u samaynaynaa nidaam fadhiya in ay annagana sugaan, xilkaa la wareegnay. waxa aanu xoolaha dhakada isaga saaray 490 ka halaad. waxa weeye waxaanu jeebkayga kuma ogidin idinku, dee meeshaan ka imi waad garanaysaan, waa jeebkiina waxaan usoo qaadnay. tol sharaf iyo qiimale baad tihiin, laf dhabarta jirkayga ku taallana waa tihiin. ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu idinka dhigo ummad barakaysan, taladeedana mideeyo, isjecel, beerkeennana uu ilaahay burcad isu mariyo. hawshaa halaisku gey gudub taago. waan ku muusanaabaya Axmed Garaad. hablaha ayaanu si gaar ah aan ula hadlayaa Axmed Garaad. waxaa la yidhi fardhaxa faro kuma jirto ama suul faro kuma jiro. mar walba idinka ayaan maaragtay hadalkaygu si gaara idinku socdaa, waayo firfircooni iyo raganimo baan idinku tuhmaynaa, iyo dhiig iyo dadnimo iyo damiir aanu ka yara gaabinay xagga ragga. aad baan idiin salaamayaa. xaajadaas mar labaad baan idinku celinayaa. wallaahi dan aan leeyahay umaan dhaqaaqin, waanan ilaah baan idinku dhaartay. waxa weeye danta aan u dhaqaaqnay waxa weeye in aan kala bogsiino boogaha oo aan dhayno Axmed Garaad dhexdiisa, kabacdina uga gudubno 50 ama maaragtay 70 xubnood oo Axmed Garaad oo dhalinyarada aqoon-yahanka oo loo sameeyo guri kaga hadla sidii ummadan loona hormarin lahaa, waxbarashadeeda loo taqadumin lahaa, dhaqaalaheeda loo taqadumin lahaa, midnimadeeda loo taqadumin lahaa, hore loogu socon lahaa. insha Allah iyadana waxaad isbuucyada ku xiga ayaad maqli doontaan. waxaan idinka rabnaa midnimada inaad ka qayb qaadataan. midnimadu waxa weeye horta inaynu dhayno boogaheena, in aynu xumaanteena asturno. aad baan idiin salaamayaa. wada shaqayn wacan. akoonnadaasi waa in ay sanqadhoodu meel dhow iyo meel fogba laga maqlaa. wixii soo gala waxaan idinla wadaagi doonaa. ilaahay baanu ka magan gelaynaa wax ka mida inay nagu baydhaan. shidaalka la isticmaalayo waxaanu ka isticmaali doonaa biilasha reerahayaga, ma ka isticmaali doono xaggan ee loogu baxayo deegaanada. waxaanu doonaynaa waxaa idinka soo baxay gacmihii loogu talagalay inay meel aamina ku dhacaan, wixii loogu talagalayna gacantii loogu talagalayna gaadhaan.
mar walbana warbixinta maalinlaha ah aanu kusoo gudbino akoonka inta kusoo dhacday, qof walibana uu sidaa ku qanco. ilaahay waxaanu ka magan gelaynaa wax ka mida waxyaalahaas calooshayada iyo kuwa ubadkaygaba inay galaan. aamin baana laga yahay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga aamin nooga dhigo in ay waxaasi nagu soo beydhaan oo naga ilaaliya. isagaa naga ilaalin kara. dad nadiifa oo xul ah oo yuusuf baa gacanta ku haynaya iyo gruubkiisa, yuusuf maxamed rasaas, rag qayima oo aan isleeyahay tolow maanta dadka ma laga helayaa dad kale, waa laga heli karaa oo tayaysan weeya raggaas guddida ahi. aad baan idiin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacdu. anaa kusoo noqday oo jaamac weeyaan, jaamac kutiye. hadalkii hore beesha Axmed Garaad usoo duubay ayaa faqradan yarna ay ku socotaa. laana nin habari dhashay hal ma seegi waay bay Soomaalidu tiraahdaa. hadal baa iga yara hoos baxay. waxa weeye sida la ogyahay dagaalkaasi wuxuu dhex maray Aadan Axmed iyo Cali Gari Axmed. dhaawac fara badan baa dadka gaadhay oo naafo u batay. dhaawacaas maadaama la doonaya Axmed Garaad in la boogadhayo oo la mideeyo, waxa weeye hawshan waxaan ugu talagalay in Axmed Garaad oo dhan ka qayb qaato oo sadaqada la baxo oo dadka walaaladii kala bogsiiyo. ninka Axmed Garaad shilinkiisa inuu ku daweeyo nin kale Axmed Garaad buka. reerahan kale aynu la degannahay dhulbahante ee reer Buuhoodle gobonimada iyo dadnimadu ka muuqatana aynu ka raali gelino dhibaatooyinka iyo daanooyinka faraha badan ee aynu u geysanayno. marka Axmed Garaadna haddii uu hagaago oo dhexdiisa uu boogadhaydo, dadka kale wax dhiba ma wadaan. dadka kale dad maaragtay dee dhulbahantanimadii iyo reer Buuhoodlenimadii ay ku weyn tahay oo gacantooda iyo afkooda laga nabadgelay weeye. dadka maaragtay dhibaatada iyo waxyeelada ay dhex maraysa ama had iyo goor falqadalada wada waa Axmed Garaad. marka waxaan doonaynaa in aan Axmed Garaad bogsiino, kabacdina aynu maaragtay midowga Buuhoodle iyo dadnimadiisa aynu ka shaqayno. nimankan dhaawaca ah 3 meelood oo meel baa laga daayay oo layidhi dhaafa, waxna waa la siiyey, waxay u hadhayna waxay noqdeen 490. sidaasaa la doonaya Axmed Garaad inuu kaga wada qayb qaato. aniga oo aad ogtihiin inaan dee xabsi ka soo baxay muddada intaa laegna maaragtay ka maqnaa dadka iyo maaragtay ganacsigii iyo maaragtay inaan adduunyadan dee hadda maaragtay xorriyadda aan ka maqnaa. haddana maaragtay maadaama aan hawshan abaabulay waxaan ku khasbanaaday inaan noqdo qofka ugu horeeya ee dee ku dhawaaqa inuu xoolaha ka qayb qaadanayo. 4 neef oo geela ayaan maaragtay dee dusha u ritay. marka insha Allah ilaahay inaga fududeynaya waan bixinayaa. waana wax sahlan. waxaan idinka baahannahay hawsha inaad isku gudub taagtaan oo qof walowba aad qaybtaada qaadato. billahi tawfiiq. assalaamu calaykum.